dadka Soomaaliyeed indhahooda ku arki doona wixii ciidanka cirku ay haystaan. waxaa jira isbedel ku aadan difaaca dalka gaar ahaan dhismaha ciidanka kala duwan ee qaranka Soomaaliyeed. isbedel ayaa ku dhacay waqtiyadii ugu dambeeyay heerar kala duwan waa la soo maray. maxaa ka jira ama ma jiraan dib u habeyn ku saabsan iyo qalabayn gaar ahaan ciidanka cirka Soomaaliyeed? runtii ciidanka cirka iyo ciidanka baddu waa laba meelood oo aad muhiim u ah. isbedel xoogan baana lagu ka dhex socda. ciidanka badduna biri aan ka yareyn dhul aan ka yareyn bada biriga ayaa rabaa in lagu aadiyo oo baddaas weyn oo 3,000 kilomitir ka weyn oo qashinka la isaga daadiyo oo sida sharci darrada looga ugaarsado oo burcad badeednimo mararka qaarkood ay dhacdo lagu soo marmarsiyoodo in lagu soo fargeliyo baddaas oo lagu joogo waxay u baahan tahay qorshe u baahan tahay. taasaa ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidanka badda aan rabnaa inaan runtii ku xoojinno awood u yeesho inuu badda Soomaaliya oo dhan uu kontaroolo. baddaas la iska soo haweysay cid kasta iska soo haweysanayso inuu awoodii difaaca ee baddaas khataraha ku soo wajahan khataraha ka dhex jira iyo ku soo wajahan intaba ciidan awood u yeesho. dabcan waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaale xoogan bay u baahan yihiin laakiin waxaan rabnaa si gradual oo tartiib ciidanka inuu soo kabsado. sidaas la mid ah ciidanka cirka oo aan laga maarmin dagaalkan hadda khawaarijta howlgallada ciidanku kama muhiimad yara kuwa dhulka. marka inaan ciidan cir oo awood yeesha oo diyaaradihiisa haysta oo la dhiilgareeya cadowgaas maaragtay xarumaha iyo tababarada iyo ku qabsanaya dalkeena gudihiisa oo dalkeena ilaalintiisa u xilsaaran ku soo xadgudubka hawadiisa u xilsaaran inaan isagana la yagleelo. ciidankaas runtii unugtiisii iyo agaagumkiisii waa socdaa. taliya cusub baa loo sameeyey. insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed waxay ku farxaan ay arki doonaan insha Allah. dadka Soomaaliyeed ay aad u hadalhayaan oo ah awoodda iyo dhismaha ciidanka cirka Soomaaliyeed. ma jiraan heshiisyo dowladda Soomaaliyeed ay la gashay dalal shisheeye si ay ciidanku helaan diyaaradaha dagaalka ee casriga ah? sideedaba waxa weeye heshiisyo waa jiraan laakiin hadda maaragtay halkan kuma faahfaahinayno. heshiisyadaasi dhinacyo badan bay taabanayaan. dhinac kastoo ciidankeena ka mid ah in awooddiisa kor loo qaaday taabanayaan laakiin waa insha Allah dadka Soomaaliyeed indhahooda ku arki doona wixii ciidanka cirku ay haystaan.